runtii aan lagu baraarugsanayn ay ku qotonto safarka Mahad Shub oo ah lafta gareen adeerkiisii ama sodogiisii ayaan rabaa inaan ku sadaqaysto kelmadeydii qiimaha badan walaalaheeni deriska aan nahay reer Marifle oo deris aan nahay oo in muddo ah deris wanaag aan ahayn oo aan ahaan doono weligeeni allaheeni isbahaysi aan ku wada jirnay oo runtii isbahaysigii aan ku wada jirnay ilaahayna garansiiyey wax badan sacbadaan u tunnay burburkan gudihiisii sidii waagii boqortooyadaan ahaan jirnay ay nooga daba safnaayeen in muddo ah annagana waa ku daba feelnay macnaha qofba waa tookidiisii laakiin hadda insha allahu tacaala ilaahay waa noo kala maaragtay nafisay qofba maaragtay muxuu ahaa wax ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa faraj u furay annagoo ah doon Shabeelle State laakiin kelmadeyda qiimaha leh xogta aan ka hayo Baydhabo ayaan rabaa inaan la wadaago kuwa hurdaayo oo aan waxba kala ogeyn oo reer Marifle ah oo dushoodii lagu adeegtay oo lagu dul shaqaystay oo aan dareen iyo damiir midna aanan lahayn oo ay isaga dul qaadaan oo maaragtay lagu xukun ballaarsaday ayaan rabaa inaan idinla wadaago ummadda Soomaaliya insha allahu tacaala iyo gaar ahaan reer Baydhabo hadhawaade insha allah kulligii hadhawaade intii maybwa muuqay iyo maqalkay kasaasa hadhawaade wara isinhaaye geek ani geek wara isinhaaye geeka war muhiim ayaa isinhaaye arow goho yaa barnaamijkun isdeersiye waana sheer gareeye danta tiidin hatta isan hoodan inin aragne berkiimay badan kureeraan umrusho dhammaaday oo waayela nagadeen ciyaalka ada dhalli yaa walantaraasa kelmadun meel fog deersiye reer Baydhabo yaa may badan kureeraan gaar ahaan walaalo reer Marifle yaa ku socoto siyaasiyiintiyo aqoon-yahanadiyo walgorodsho ciidansho xildhibaanadiyo wasiiradiyo yaa ku soo tarintun reer Marifle markuu insha allahu tacaala may weeli lafta gareen isan hogtiis maadaama isan ahayna uninin ku dhumaan ani ihu hooyasan insha allahu tacaala soo dhawaada mar kale waa maartay muxuu ahaa gurmud qaran doon Shabeelle insha allahu tacaala safarka degdega ah ee General Mahad Cabdiraxmaan Shub ee Baydhabo taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed General Mahad Cabdiraxmaan aadan Shub ayaa shalay si degdeg ah ugu ambabaxay magaalada Baydhabo shalay Baydhabo aaday duqi Shub ah sababtu aadamiyaad ogtihiin maxaa koos gareeyay maxaa kalifay safarkaas degdeg ah Baydhabo okay barnaamijka inta online-ka ah aniga haygu danaynine mustaqbalkaaga u danay adiga mustaqbalkaaga share garee insha allahu tacaala isgaarsii dhammaantiin insha allahu tacaala alla share gareeyo alla share garee dhammaan share garee insha allah inta online-ka isgaarsii insha allah okay Mahad Shub shalay Baydhabo safar degdega ku aaday ujeedada Mahad safarkiisii ayaan rabaa inaan la wadaago reer Koonfur Galbeed walaalahay reer Marifle oo runtii kolba hadda ay ka sugayaan maamul iyo nolol bad ka sugaysan lafta gareen iyo adeerkiisii yaa laakiin xog baan idin hayaa waana xog muhiim ah waana dantiini waay aniga dan kuma leh wax dan oo igu jirtaba yaraatay malahan dar ilaahay baan idinkugu sadaqaysan insha allahu tacaala warkaan isgaarsiiya inta online-ka ah okay kuna baraaruga insha allahu tacaala okay ilo wareegta oo xogogaal ah oo si dhow ula socdo dhaqdhaqaaqyada ka socda villa Koonfur Galbeed ayaa sheegay in safarka generaalku salka ku hayo arrimo siyaasadeed oo miisaan leh kuwaasoo ay si gaar ah ugu wada tashanayaan isaga iyo lafta garan wiilka uu sodog u yahay masiirka Marifle waxaa laga tashanayaa masiirkii Marifle wuxuu soo galay lafta gareen
iyo sodogiisii yaa dhaxdooda ku jira raxween ilaahay kala maartay meel kale wax kale maanta ay sugayso ilaahay naxariistiis lagama quusto yaa naxariista alle lagama quusto laakiin raxween wallaahi oo billaahi tallaahi agabararkii khamiis talab la dhihi jiray waqtigii dabraha u bixiyey ayaa idinku soo socota waxaan u jeedaa dad bararay waxaan u jeedaa dad shumbiyood ku dhacay waxaan u jeedoon arkaa saadaalinayaa dad ayagoo barka oo qaxooti ah gaardameer saaran duurka waraabo ku cunay waxaan u jeedaa hooyo geed hoostiis ku dhashay waxaan u jeedaa caruur waddada loogu tagay ayaan u jeedaa sideediba waad u nugushihiin abaaraha markay dhacaan deegaanada inta badan laga bararo waa deegaanada oo aanan xoolo nool iyo maartay waxyaabo nafaqo aanan lahayn keliya carbohydrate misiga lagu cuno waa xaqiiqdii waa iga degniin waa iga talo gaal iyo islaam baa dhibaatada idinku dhacday u dulqaadan waayeen talaxumada idinku dhacday kor oo waa tii Mareykan soo gurmiday oo Bush iyo maartay muxuu ahaa 1991kii agabararkii wixii dhacay waad ogtihiin maantana talaxumadii baad ku jirtaan dar ilaahay baa idinku soo daqaysan anigoo ah hogaamiyaha Doodshabelle State sheergare barnaamijkaas insha Allah taala okay ujeedooyinka safarka ayaan rabaa halka inaan ka faahfaahiyo ilaa iyo insha Allah 3 qodob oo xasaasi ah waay ujeedada safarka isbeddelka degmada Baydhabo maamulka degmada Baydhabo waxaa la filayaa in la bedelo gudoomiyaha degmada Baydhabo Cabdullaahi Cali Watiin in la bedelo sababtu maxay tahay Cabdullaahi Cali Watiin tuhum waxaa lagu ogaaday isbeddel doon ah inuu hoosta kala shaqeeyo rag isbeddel doon ah oo siyaasiyiin ah oo runtii waqtigan xaadirka ah xamar joogo ayaa Cabdullaahi Watiin waxaa lagu ogaaday inuu hoosta kala shaqeynayo oo isku xiran yihiin rag fara badan oo mucaarad ku ah ganfuur culus lafta gareen macnaha raggaas iyo Watiin way isku xiran yihiin baa leeyahay sidaas daraadeed maadaama xogo la soo ogaaday in Watiin horta laga takhalusa qorshaha mahad baa wato ku baraarug sababtoo lafta gareen waa battery waay battery jaajar u baahan waay batteriga hadduu jaajar laa mobilka hadduu ku dhaco mobilka hadduu maanta jaajar hadduusan helin yani dabkiisa dhacayo ya dabka ka dhacayo waxba laguma wici karo marka jaajarku ku socdo lafta gareen waa shub waay waa shub odayga la yiraahdo oo sodogiisa ah ya marka horta barnaamijkaas number 1 waaye isbeddel oo lagu sameeyo maamulka Baydhabo waliba khaasatan Cabdullaahi Cali Watiin ninkii la yiraahdo ani aqoon u milay cid raxweenkii ma garanayo laakiin ninkaas in la bedelo lagu ogaaday arimo hoose inuu u janjeero dhanka isbeddel doonka dhaqaalan inuu bixiyay macnaaya lacag inuu dhiibay oo uu leeyahay hadhow aniga jagadan yaan laga qaadin haddii lafta gare laga takhaluso macnaha inaan iska sii joogo kursiga inaan haystaan rabaa buu yiri macnaha hadalka laga soo xigtay Watiin arrimaha I don't know marka ma ragiiba report ka gudbiyay oo nacamleeyal bay ahaayeen basaasiin xamar ku nool jawaasiisa miyay ahaayeen misana hadda warkan xogtan meel kale oo ka helay mahad markuu xogahan ogaaday isla markiiba diyaaradii buu dabada ka qabsaday macnaha ya okay labo magacaabis taliyaha cusub ee asluubta Soomaaliyeed ما هذا عذر باكو داعي إلهي عافية لنا أنك قف مسلم عذر كو داعي ما هبارينو اللي وحنا قلنا دحيا مجرم لكن ما هاد تركي وتجي إن دخاتيرتي وحي ريكومنديشن يكون بحيان إن وصن شقين كرين إنه أباهي هاي دريالد لفيسي وديك لفاهان وأبربري هذا مبلغ قدام بين مردو بوحو قرصدي يعني جبر أن أسجى تبرتي سهين جبر بورن أو رنتي حيئة أو نول أو ير أي حركة كحرة أسوأ سديتين جرأة أي وحي كو أدي جبر جور كو داهذي أو دا دي الوقيا سلواتين سديت صدن سنة جرأة أو آدي آد ما أرتمحوها لور نفقيي
ayuu kor iska maray odayga macnaha neeftii bay ku xirtay haddana maaragtay waxyaabo isticmaalay oo maaragtay daawooyin hadda Soomaaliya dadka inta badan waxyaabaha ku baaba'ay waxa way kaniinigan Viagra la yiraahdo veegihii buu odaygii iska badiyay qof baleeshar qabo oo dhikar qabo oo xanuunsan 30 jir guriga u joogto oo yaan laga dareemin uu rabo yani waa arrimaha halista way xaqiiqdi caafimaad ahaan yani stroke buu ku dhuftay odaygii dhinac dhan baa ebela lug baa ebera gacan baa ebera gacanta midigta oo dhinac midigta dhan waa eber laakiin bidixdu kugu salaama macnaa qof walba arko odaygii gacanta bidixdu ku salaama macnaa marka waa dhibaato soo wajahday way caafimaad xumo marka Ilaahay ka kor qaadan leeyahay laakiin asiga lafiis isdilay hal rabay ceebtiis waa asturneed marbu seedin oo ahana ka naftirkeeni seedib uu noo aha Ilaahay wixii kolba naga siiyay Allah barakeeyo leenahay marka dadka noocaas oo kale oo dadkii hore oo asiga maamooyinkii hore inuu isaga dhawaado oo ceebtiisa asturnaato ayaa u fiicnaan lahayd laakiin hadda asiga isbiimeeyo naqaska isku xirayo oo maartay muxuu ahaa xaqiiqiyan marka waxa waaye waa goolal waaweyn ba laga rabay kaali dhali buu isiri laakiin asiga laga dul dhalay gooyashii waaweynaa asiga laga dul dhalay generaalkii shub aha marka xaalad caafimaad daraadeed shub waxa loo sheegay inuusan yani wax xil ah uusan hayn karin shaqo arrimo bulsho inuusan qaban karin macnaa xanuunkaas daraadiis macnaa xanuunsan Ilaahay caafiyan leeyahay ma fahamto marka sidaas daraadeed marka maadaama dhakhtarkiina cadaadis soo saaray asagana tabartiisi uu dareemay inuusan shaqadan hayn karin wuxuu dalbaday oo ku socdaa buu ku socdaa ya Jeneraal Shub ayaa wajahaya xaalad caafimaad daro kadib maadaama uu la ildaran yahay xanuunka faaliga ama stroke tani waxay dhalisay baahi degdeg ah oo lagu raadinayo bedelkiisi iyadoo la isku dayayo in xilkaasay uusan gacanta u gelin cid aan iyaga reer gareen ama qoyskan oo raxweynta milkiyay oo miriflaha mirifla u noqday qoyskan walaalay reer mirifla milkiyay yani qof aanan ahayn oo reer gareen ama reer shub aanan ahayn inuusan xilkaas yani muxuu ahaa taliyaha asluubta loo dhiibin xasan sheekh maxamuud waxyaabaha maartay muxuu ahaa shuruudaha lagula galayna looga dhigay macnaa ayadoo dareen kalena jiro dareen weyn baa jiro soo wada sheergalay barnaamijka dareen kale ka weyn yimid ya marka waxay dhalisay baahi degdeg ah oo lagu raadinayo bedelkiisa iyadoo la isku dayayo in xilkaasi uusan gacanta u gelin cid aan iyaga kamid ahayn inaysan xilkaas leysaan qabanin waa laga ilaalinaa leysaan koow waa inaysan maartay hadama qabanin waa laga ilaalinaa taliyaha asluubta hadame waa inuusan qabanin maartay muxuu ahaa boqol hore waa laga ilaalinaya waa inuusan eelay qabanin waa laga ilaalinaya waa inuusan maartay muxuu ahaa garwaalo qabanin waa laga ilaalinaya waa inaysan waanjel qabanin waa inaysan maartay geeladla qabanin waa inuusan jilibla qabanin waa inuusan jiroon qabanin waa inuusan macallin weyne qabanin waa inuusan maartay muxuu ahaa wixii yaryaraayo yalal iyo qoomaal iyo wixii yar hoos ku jiray oo dhan ayaa laga ilaalinayaa hilkaas waa in reer shub waliba xariinka kale caadiga ah oo maartay nasabka ah waa laga ilaalinaya sida Dr. Ibrahim oo kale qoyskiisii Dr. Ibrahim ninka la yiraahdo qoyskiisii waa laga ilaalinaya hilkaas macnaa ma fahamtay marka hilkii hadda marka waxa waay si marka looga bedelo yaa la soo helay yaab waay wallahi hatta dabarata dana wajid qofka la soo helay beesha dabar danteeda ku jirtaa seedigiina dabarow seedigiina baa miiska saaran seedigiina yaa yaray dirmadow mar hore xaruntiin waxay ahayd meesha la yiraahdo asluub un baa maartay ciidankiin asluuba u badnaaye waxa meesha ku soo socda seedigiini waa inaad sanbaati diyaarsataan u diyaar garowdaan soo dhawaynta seedigiina okay xilkaasay gacanta u gelin cid aan iyaga kamid ahayn sida wararka sheegayaan lafta gareen iyo Jeneraal Shub waxa miiska u saaran nin magaciisa lagu sheegay baa li dadka isku makeen inuu seedigeena yahay aamin madaruur aamin homey waxay ugu baxday idinka yaqaano aamin homey ninkii la yiraahdo aamin madaruur waa ninkii seedigeena ahaa
ayaa lafta gareen miiska u saaran loona wada taliyaha asluubta Soomaaliyeed hab qabyaalad macnaa asaga ayaa maaragtay hadduu ilaahay ku idmahayo booskii taliya shub ku xanuunsaday asagaa loo wadaa marka inaad ku baraarugtaan baa loo baahan yahay hadda uu magaca taliyaha booliiska gobolka Baybur ku magacaaban yahay ninkaas waa seedigay aniga xurmud buu igu leeyahay sharaf buu igu leeyahay aamin hoomey marka hoomey haduu diidaa hadii kale aniga ma ogi raxweyne idinka idin taala dayib qodobka saddexaad ayaa wuxuu yahay ka jawaabista heshiiskii madaxweyne Xasan Sheekh iyo mucaaradka jahwareer weyn baa dhacay markii Shariif Xasan iyo Maxamed Mursal oo laba awood oo aan la dhayalsin karin ninna waa nin sagaal ah waay nin waa nin sagaal oo luwaay oo Maxamed Mursal waa gudoomiyihii hore baarlamaanka Soomaaliya waay qof walba garasho fog buu leeyahay ciidan asaga daacad u aanu Baydhabo wuu joogaa xaqiiqdii intaan ka ogahay aniga ciidan luwaay ah oo Maxamed Mursal arursaday oo daacad u ah oo hadda korba doorashada hadii hawada Baydhabo la diido buu Baydhabo hadii hawadeed in la soo maro hadii la diido wadadan soo marayna ciidankii uu ku dhaaran jiray makuudo ilaa iyo manaas inta ka dhaxleh ciidamadii baa jooga oo beesha luwaay u dhashay diyaar garow adag bay ku jiraan marka Maxamed Mursal oo Xasan Sheekh Maxamuud heshiis la galay waxa waaya aadan madooba ila shalay aadan madooba ninka la yiraahdo shay madaraad markii arrintan ay dhacday oo maqlay xanuunkii qabtay ilaa hadda sariirtiisu saaran yahay shalay rag meesha aaday xildhibaano saaxiibo aan ahay ayaa waxay ii xaqiijiyeen warniga odigi tabcaan way qaabilaadata uu diiday oo laba biyood noqday bali maana Turkigu aaday marka xogo laba biyood amal waalay waa been waxba kama jiraan odiga 10 maartay 8 maalmood buu ka jooga Turkiga waqti uu ka yimid 8 maalmood ka soo wareegtay 8 maalmood ma laba biyood la noqon kara ka hor buu caafimaad qabay markii heshiiskan oo Shariif Sakiin iyo ninkii la yiraahdo Shariif Xasan aan dhahe iyo maartay Maxamed Mursal markuu la heshiiyay Xasan Sheekh markay la heshiiyeen ayaa xanuunkan soo booday macnaa marka odigii calooshi baa furantay xaqiiqdii markuu stress qofku ku dhaco aniga nin dhakhtar baan ahay arimaha stressku alool bixid buu leeyahay macnaa maanta dhan alooshaadii dhawaaq baa ka yeeri stresska waxba macnaa ka guuxay waxaad moodaa baabuuro kolonyo ah oo uurala ah Ethiopian leeyahay inay dhaxmareen aloosha gudaheeda ayay ku soconayaan macnaa marka odigii alooshi baa wareegtay macnaa muxuu ah uu isla hadlay waxaan markay convulsionka markuu dhacay de Xasan Sheekh waa xariif waay uma joojinay mar hadii kii laga adkaado ayuu rabaa Xasan Sheekh inuu la shaqeeyo macnaa مرفله دوب كلا أتكاده مرفلها إنه ما أرتي مرفله A iyo B iyo C إنه كلا يشور رباه A iyo B iyo C مركب مرفلها ده كلا أتكادان إدي أتكاته إنه لا شق أيور رباه حسن الشيء محمود وعيال سوق ويضيقه ما فهم مركب إن وعليه هاي إن مرة على مركب حالة أنا مدوى ما أرتي مغلي وضيقي على البرود بكون عي waxaad moodaa geel cusbo la siiyo oo maartay muxuu ahaa bal la siiyay oo kale musqushi ilaa qolkii iyo musqushi u dhaxeeyo odiga ragga asaga hadda la joogo waa weydiin kartaan marka waa gurmud qar waxa laga qarin karo villa Soomaaliya iyo villa Harin meel wax loo qarin karo haba yaraatay ma jirto marka waxa mana qodobka saddexaad buu ahaa ka jawaabista marka sidii laga yeeri lahaa mahad wuxuu u socdaa سين وحيلنا شريف سكين كي بانا لوغو سو نوليي كو ما ارتي محمد مرسل عقدود دوقي واد اوغتahay maxaan sameeynaa waa ayadana waa arin meesha markii heshiiskan u dhacay mahad isla shalay si degdeg ayuu xamar ugu baxay macnaa inuu soo noqonin waa laga yaabaa xaqiiqi ma fahamtay waxa laga baaran degayaa jawaabta laga bixinayo heshiiskii dhawaan la gaaray oo u dhaxeeyay madaxweyne Xasan Sheekh iyo siyaasiyiin miisaan culus Shariif Xasan iyo Maxamed Mursal oo lafta gareen iyo aadan madoobe waxay u arkaan in heshiiskaasi halis gelinayo kuraastooda iyo saameyntooda siyaasadeed ee hadda jirto iyo tan mustaqbalka waa xaqiiqo maana Shariif wuxuu anti ku yahay lafta gareen ila 8 bas sheegtaan asharaaf waa 8 hadii si loo firiso ma asharaaf sarmaan waa 8 waay
ما فهمت يا درد waxaan arkay ashraaf naftirkeedu ay leedahay mirifda anaga sameeyeen ashraaf ayda anaga sameeyeen goormayda mirifda sameeynaysa anaga ay sideed ku darnay dabaraaba sameeyo ilaahay ha barakeeye anaga waa sameeyeen ashraaf nafsadaanteeda la sameeyay markaas waxay leeyihiin sideed sagaal anaga sameeynay tuulo Soomaaliyeed ku sameeynay baahu waxba kama jiraan ashraafta lafaheedii in sideed lagu daro odagii maartay muxuu ahaa awowgay ahaa aw shaybreno ayaa sabab u ahaa aw shaybreno egertuurwin yaal ayaa sabab u ahaa waa kan aadan khayr marqaatigeyga waa kan aadan khayr weydiiyo waa taariikhyahan waa ma faham aadan kaahin aadan jaamaca kaahin salaan gobeed baan hawada ku soo martay saaxiib macaan insha Allah taala aad baan ku salaamay aadano okay dayib marka waxa laga baaran dagayaa jawaab ka bixin heshiiskii dhawaan lagu gaaray macnaha waxa loo murgay mustaqbalka labada kursi kan aadan madoobe iyo kan lafta gareen okay inkasto oo aadan madoobe si toos aan safarka ugu muuqan haddana ilo sirdoon ah ayaa xaqiijinaya oo u xaqiijinaya Doorshabeelle in uu yahay maskaxda gadaal ka riixayso kulamada socdo safarka General Shub ayaa noqon kara mid fure u ah isbeddelka siyaasadeed oo culus oo la filan karo koonfur galbeed maamulka walaalaha Marifle maalmaha soo socda ya maalmaha soo socda marka al-umum waxaan leeyahay walaalahay saaxiibaday qaaliga ee reer Marifle haddii masiirkiina lafta gareen adeerkiisa gacanta ku qabtay oo wali aad raali ka tihiin oo tashan weydeen waa runtii nasiib darro bulsho haddii yani muxuu ahaa oo ilaahay nasiibkeedii xumaynayo nasiib xuma idinku dhacday war ma tiri yaridiin waa ka tira badantiin laakiin tayo ma leeyihiin ya war waxa loo baahan yahay aawi hogaamiye wajikaaki amaanta midin soo bixi kara ilaahu ku naxariis xaafsade inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un ya nin siyaasi ah oo saaxiibanahay oo reer Marifle ah oo xildhibaan hore ahaa baan daraad sheekaysanay wuxuu igu yiri ya xaafsade iyo raggii hore ayaa maartay muxuu ahaa magacyadan soo qaadnay wallahi billahi odiga wuu ilmay wuxuu yiri haddii maanta xaafsade noolan lahaa ma leysaan lafta gareen shamiindo marin lahaa buu yiri macnaha لا حول ولا قوة إلا بالله والله ورنتيسي يا هدي حابس ما أنت إفك جوجي لها وحدي جري بوري كت يكير يا لكينا ودي لا برمانا كت يا لكينا واحد كلام وداي برمانا يا ما فهمت كت ولا يسديد ما أرجعي ها كت يكير يا لكينا واحد كلام ودي جري بوري حابس الله ونهارستو reer Marifle masiirkoodii waa baaba'ay waa dad tiro badan oo laakiin waji jilicsan waay dad jilicsan waay maxaa yeelay inay jilicsan yihiin waxaad ku ogaataa inay jilicsan yihiin waxaad ku ogaataa inay yihiin dad jilicsan waxaad ku ogaataa wallahi oo billahi tallahi waxaad ku ogaataa wax kale ma bakool gacantooda ka baxday gobolkii Gedo waa laga qaatay wiilal yar yar oo reer Xasan ah dhalinyaro ah oo yar yar reer Xasan la yiraahdo ayaa gobolkii yani muxuu ahaa degmadii maartay Luuganaan iyo wabigii labadiis jiin wiil waa reer Xasan way la foos way waliba laf la yiraahdo way waqmaash la yiraahdo waqmaash laf yar oo waqmaash la yiraahdo oo laf hoose ah ayaa gobolkii Bakool la wareegtay waqmaash reer Xasan baar dheer niman reer uga sharmaarka la yiraahdo niman talxa la yiraahdo ayaa la wareegay waa qabsaday waa la wareegano khalaas lagama daba hadli karo gudoomiye ku xigeen wax walba ayaga isku ah khalaas warhaade raxweynay haddii baar dheer ayna waxba ka qaban karin annaka oo dabara aan ugu soo wareejiye wallaahi oo billaahi tallahi marixa inaan ka yeelaynin inuu gudoomiye iyo ku xigeen isku qaato waa loo dhimanayaa lagama yeelin laakiin waa wada hadli lahayn waa ka qaadan lahayn anaga ayadoo habad dhicin bayba dhiib dabara miya hala sii dhihi lahayn macnaha ma fahamti
marka abdi hawsa hoosu meelaha in laga hadla buu yaqaanay abdi hawsa ma asiga qori waxba kama oga kaas waxba kaas miskiin waaye kaas fiirinin ma hadan ma artay muxuu aniib urkaha rahi waxa saad arkaysaa idinka macna waxyaaba comedian way ninkaas waa nin iska shactiroola waa siyaasi ma aha hebel hoosu aad sheegaysid adahafo hoosu siyaasi ma waa comedian waay aad iyo aad bad u baasantiin insha Allah ta'ala ilaahay ha u gargaar walaalaheeni reer marifle حالات أدق بكجران ما هاد سفر كيسن وصداس إن شاء الله تعالى برنامج كان قول الحق ولو كان مرا إسجارسية أما إسجارسين ومستقبل كين وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.